ساكن سيرعات وقبية تدان حنتا عيركا دورشوين حدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wax kale aniga dhibaato kale ma jirin waxaan diiday un xeerka inaan soo aqrino baan doonayna anagu xeerkan waa xeer muhiim ah waana ansixinaynaa wax dhibaato ay ma jiraan de xeer maalin inta la isku waa intii laga dooday waa ogeydeen saxaafaddu way jirto waxa weeye 10 casho in ku dhow laga dooday marka inaan wixii aanu secondmanka helay taageerada helay qodobadii taageerada helay aanu doonayna wax ka bedelo inay ku jiraan un baan doonayna inaan hubino wax kale oo dhibaato ay ma jiraan xeerkan waa xeer muhiim ah waana xeerka doorashooyinka lagu maamulayo dhamaantoodba marka in la asixiyo waa waajib laakiin in la hubiyo oo aanu khaladaad yeelan un baan doonayna iyo wixii aanu awalba sulugnay in meesha laga saaro marka tiiba yiraahdeen de maxay ahayd maanta inuu ansixinaynaa waxa weeye maanta aan loo qaybiyay hal qodob xitaa ma aanan eegin qodob baana lagu ansixinayaa baa yiri laakiin qodobka had iyo goor way isku qaadaan oo inta yiraahdaan qodobka koowaad ilaa ka 10aad ama ka 5aad ilaa ka 8aad bay yiraahdaan taasina de wax laga bogan karo maaha haddii maanta qodob loo akhriyo oo farqad loo akhriyona yaa xitaa dhowr casho soconaya markay sidaa tahay anagu waxaan soo jeedin in maxay tahay xeerkan la soo akhriyo laga soo bogto dabeedna la asixiyo tii un baa shirgudoonku diiday tii un baa maxay tahay laakiin markii dambe maxay ahayd de goluhu uu diiday de gudoomiyuhu waa ka cod u qaaday inkastoo anagu aanu jeclayn inaan codba u qaadin sidii dhici jirtay inuu yahay soo akhriyo yaa hadda de codkuun baa lagu kala baxayo anagu si aanu doonaynay bay de u dhacday marka waa soo akhriyayna dhibaato kale ma jirto hal maalin laga bogan karaa marka akhriskiisa maya laakiin waa kaliifo waa sargareeyeen ka soo bogan iyadoo xildhibaan ka maqan yihiin sidee suurtagal ku tahay in codka la geliyo amba waji noocee yeelan kartaa guud ahaan baarlamaanka hadii kuwaas maqan yihiin kooran kuwa buuxa goluhu waxa weeye cod buu isku maamulaa de loomana diiday xildhibaanadu inay soo galaan anigoo raygan qabo waxa weeye de gudoomiyuhu wuxuu ka soo jeedaa awdal baa laga soo doortay hadduu isagina jeer gareynayo ku kalna ima waaye de waxa weeye golo cod buu ku kala baxaa isagu baaban hogaaminaya hadduu joojin waaye de anagu de golaa ka hor iman mayna waa saxinayna arrintooda guddibaad u saarteen maxay isbedelay anagu ilaa hadda warbixintii waa ka sugaynaa gudoomiyuhu de nooma sheegin waxyaalaha nu salugsan bay ka mid ahay waxa ka mid ah de in saaka naloo akhriyo la yaho maxay tahay warbixintaana la siiyo la yiraahdo guddidii loo saaray xeerkan ee maxay ahayd inay xildhibaanada u yeedhaan ma xildhibaanadii baa diiday ma kuwanaan u tagin ma madaxweynaha ay heli waayeen anagu taadee garan mayno warbixinta lafteeda de shirgudoonkan ka sugaynaa anagu shirgudoonkan xaq ugu leenahay xitaa guddidii xaq ugu malihin in looga warramaan xildhibaan xeerka waxa ku qoran laba saasin marka wada qabto arrinta lafteeda yaa la raacaya taas waa arrin kale weeye doorashada halkan in la wada qabto iyo in la kala qaado xeerku midna xusi maayo waana la wada qaban karaa lamana gaarna waa loo kala qaban karaa dee duruufta iyo waayihun baa loo eegi doonaa baylata ma isleedahay inuu ansaxayo xeerka haddii berri toola ay soo waa ansixi karaa waana la diidi karaa taanu kama warrami karo laakiin waxaan rajaynayaa in la ansixiyo